ciidamada kumaandooska danab ee Puntland oo maanta ku soo bandhigay dhoolatusyo magaalada Garowe wuxuu ka turjumayaa dhoolatuskaasi iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay in uu Puntland ka dhex abuuro colaado sokeeye waa kula wadaagaya iyadoo faahfaahsan iyo sidoo kale wararka ugu dambeeyay dagaalka ka socda Buuraha Calmiskaad oo shalay iyo ilaa maanta ay ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeya ciidamada difaaca Puntland iyo sidoo kale kooxda Daesh jabkii loo geystay kooxda Daesh ayaa kula wadaagaya iyo sidoo kale askar ka dhimatay ciidamada Puntland ayaa kula wadaagaya dhanka kale balse marka wax ka codsanaya in YouTube ku soo dhawaato subscribe dhahdo muuqaalka la iga saarto kambalelkana furato si ay ku soo garaaniin warbixinada ku saabsan Puntland iyo deegaanada Soomaalida ee aan halkan ku soo gudbino haddii aan ku bilaabo ciidamada kumaandooska danab oo dhawaan wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka Soomaaliya uu sheegay in uu mushaharkii u sii daayay ayaa magaalada Garowe ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaas oo la og yahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay rabto in ciidamadan ay u adeegsato khalkhalgelinta amniga Puntland iyada oo ku xumeynaysa madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ciidamada oo maanta magaalada Garowe banaankeeda lagu soo bandhigay ayay dowladda federaalka Soomaaliya dhamaantood dhawaan mushaharka u soo siideysay Senator Faroole oo ah madaxweynihii hore ee Puntland ahana Senator Puntland ku matala dowladda federaalka Soomaaliya oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay in haddii dowladda federaalka Soomaaliya mushaharka ciidamadaas u siideysay ay dhab ka tahay ayna rabin in ay khalkhalgelin ciidamadaasi u adeegsato waxa uu sheegay in systemkii loogu talagalay oo dowladnimo inay ciidamadaas mushaharkooda ugu sii daayaanin oo u sii maryaaniin dowladda Puntland isla markaasna dowladda Puntland ay ciidamadaas mushaharka ay siinayso dowladda Puntland ayaa iyaduna dhawaan la sheegay in mushaharka ka goosatay ciidamadan waxaana la sheegay in la ogaaday inay gacan saar la leeyihiin madaxweynaha Soomaaliya iyaga oo raba inay kala shaqeeyaan khalkhalgelinta amniga caasimadda Puntland iyo sidoo kale dadka reer Puntland ba madaxweynaha Soomaaliya oo raba inuu sumcad dil ku sameeyo madaxweyne Dani oo uu isleeyahay waa yahay qofka kaliya marka laga yimaado farmaajo kugula loolami kara kursigan ama kamid ah musharaxiinta ugu saameynta badan madaxda hadda u tartamaysa kursiga u sareeya dalka ayaa raba inuu sumcadil ku sameeyo madaxweyne Dani sumcadilkaas oo uu marayo in uu ciidamada Puntland dhexdooda uu adeegsado deegaanada Puntland si uu ugu abuuro colaado sokeeye markaasna sidaas madaxweyne Dani loogu eedeeyo inuu isagu ka dameeyay colaadaha sokeeye ee ka dhici kara Puntland dhanka kale dagaalo culus ayaa ka dhacay Buuraha Calmiskaad kuwaas oo u dhaxeeya ciidamada difaaca Puntland iyo sidoo kale firxadka kooxda Daesh shalay ilaa iyo maanta ciidamada difaaca Puntland ayaa baacsanayay firxadka kooxda Daesh waxa ayna dileen ilaa iyo 25 kamid ah kooxda argagixisada ah ee Daesh kuwaas oo meelo kala duwan ku sugnaa dhanka kale ciidamada difaaca Puntland ayaa la sheegay in dhowr askari laga dilay balse ciidamada difaaca Puntland iyaga waxa ugu weyn oo ay u dagaalamayaan waxa weeye in ay dalkooda ka sifeeyaan dhammaan kooxaha argagixisada ah ee ku dhumaalaysanaya Buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari ee Puntland waxayna ciidamada Puntland soo dagaalameen marxalado ama ay ku soo dagaalameen marxalado kuwan ku adag oo kooxda Daesh ay ka awood badnayd oo ay adeegsan jirtay drones iyo sidoo kale hub aad u tiro badan kooxda Daesh ayaa iyadu hadda bilaa saanad ah waxa ayna waxa ugu badan oo hadda ay cuntana ay yihiin kadib markii ugaartii ay dhamaysatay dameeraha ay raran jireen ayaa la sheegay inay cunaaniin muuqaallo laga soo duubay ayaana muujinaya waxaan la rajaynayaa firxadka kooxda Daesh in dhawaan la soo afjaro madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo dhawaan hadlay waxa uu sheegay in uu soo dhamaaday dagaalkii kooxda Daesh intiisii badnayd haddana loo jeensanayo dagaalka onkod oo lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab ee ku dhuumaalaysata iyaduna gobolka Sanaag intaas ayaan ku soo goobaynaa barnaamijkeena caawa halkan haddaan nala soo gaartay marka waxa ka codsanaya in YouTube ku soo biirto subscribe dhahdo muuqaalka laga saarto kambalelkana furato